بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال ku soo dhawaada warka saacada ee shaqada warkii.com siyaayna inay noqoto laakiin wax kasta oo macaan oo fiican oo qurux badan la sameeynaayahay qiimo ayay leeyihiin qiimaha arintaas ay leedahayna waa laga yaabaa mararka qaar kood inay xanuun badan tahay waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ha u diyaar garoobaano dagaalka muxuu ah shabaab la galaayo dawladda iyo dalalka wadamada iyo shucuubta iyo maxaan ku raacay ciidamada caalamiga ah na kaalmeynaya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka maxaan ku raacay booliiska iyo ciidanka nabad sugidda ciidanka dhammaan ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ka wada qayb galaya shacabka Soomaaliyeedna waa ka qayb galaya dagaalku wiilasha askarta noo ah bas ma aha waa dagaal yani jiritaanka Soomaalinimada ku waxaysan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka iyo caasimadda meel walba ku nool in ay ka soo jeestaan waxyaabaha yaryar ee raqiiska ay noogu kaadiyaan oo hakad gelino siyaasadaha shirarka maamulada qabaa'ilku ay isku haystaan dadka muxuu ah siyaasadda qabaliga ah ee lagu tartamayo loo cararayo waxa oo dhan aan u kaadino yaanan rajo ka qabin inaan annaga Soomaalida aan intaan guryaheena seexano oo aan wanaag rajayno in dalku ay noo xoreeyaan dadka ajaanibta noo soo gurmada kaligood dalka inaan annagu u dhimanno u hormarno waxa aan qaban karnaahay waa badan yihiin shabaabna waan ka adagnahay aan qabanno wixii kaalmo aan u baahanaayna ay nagu kaalmeeyaan waaye muhiimadda ay tahay in maanta aan galno shabaab waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka caqli iyo muxuu ah garasho badannahay abaabul la'aan iyo diyaar garoobid la'aan iyo maxaan ku raadayay hawsho aan isku halaynay oo qoladaasa qabanaysa waaye cimrigooda wuxuu ku jiraa maantana dadka Soomaaliyeed meel kasta ku nool way wada garteen inay u soo jeestaan in shabaab lala diro waxaan rabnaa aan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in ay joojiyaan wax kasta oo muhiimad ah oo maanta jiro oo aan ahayn dagaalka shabaab lagu qaadayo xoreynta dalka laga xoreynayo nimankan cadawga ah